barnaamijkaanu dhegaystayaal toydin maqashino ahaa kii shanaad barnaamijyadii wax ka sheegayay taariikhda soomaalida waxaa dhegaystayaal aan ugu dambayntii idinku maqashinay inqilaabkii ka fashilmay saraakiishii milatariga ee reer waqooyiga ahayd bishii disembar sannadii 1961 oo aan wax ka weydiinay cabdirasaaq xaaji xuseen iyo cabdilaahi kongo barnaamijkan waxaan haddaba ku bilaabaynaa sidii ay ku dhammaatay dacwadii lagu soo oogay saraakiishaasi cabdilaahi kongo oo saraakiishaasi ka mid ahaa waxa uu noo sheegay in sida tan dacwadu ay ku dhammaatay isagoo ku bilaabaya muuqaalkii maxkamadda. maxkamaddu waxay ahayd horta waxaan ku sheegi karaa riwaayad bay ahayd wakhtigaana laba sharci baa waddanka jiray sharciga ingiriisku wuxuu jiray xagga waqooyiga sharciga talyaaniguna wuxuu jiray xagga koonfurta sharci soomaaliyeed oo labada isku daray ma jirin labada sharci mid waliba wuxuu leeyahay jurisdiction xad buu yuu gaari karaa xukunkiisu gaari karaa marka bani aadam waa inaan lagala bixin shakliga kale ee maaragtay foormaha maxkamaddu ahaydna waxay ahayd qaadigu wuxuu ahaa ingiriis dacwad ku-ooguhu wuxuu ahaa talyaani nimankana daafacayay hindi bay ahaayeen luqadda meesha socotay annagu aanu ku hadlaynaa soomaali bay ahayd marka bal adigu maxkamadda mahsaladda ah intaa maxkamad laga hadlayo adigu bal imaajin gareen maxkamadduna runta waxay ahayd fadaaxad bay u ahayd nidaamka siyaasiga markii way nagu heli kari lahaayeen hadday mutiny nagu qaadaan mutiny hadday idinku qaado idinku heli lahaayeen waa nagu heli lahaayeen laakiinse waxay yidhahdeen maximumka la beegsada oo dilis ah annaguna markaa waxaanu isku daafacnay waxaanu caddaynay horta waxaan la yidhahdo jumhuuriyadda soomaaliya inaana sharciba ku dhisnay inaanay jirinba ayaa ku doodayseen yaanu ku doodnay waxaanaanu nidhi challenge garaynay xukuumaddii bal inay keento wixii laysku raacay sharcigii lagu mudoobay leanno laba act of union baa jiray saad u og tahay waddanka oo draft of act of union ah labadii act of union ciidamo kama hadal ta kale waxay nala beegsadeen articaleka ugu 121 baa la yidhaahdaa oo indian penal codeka ah waa dil constitutionkii waddanka markaa lagu dhaqayayna court martial ma ogola ilaa wakti dagaal mooyaane markaa dee constitutionkii iyo indian penal codekii baa la yidhi iyamaa sarreeya iyamaa labada leh afdaliyad waa iswaafaqi waayeen keebaa la raacaya baa markaa la waa in constitutionka la raacaa markaas sidaasayn uga baxsanay maxkamadda caskariga ahayd ta kaleen kayska daciifta waxay ahayd annagu rag militariaanu ahayn oo u dhaarsan queen elizabeth boqorada ingiriiska u dhaarsanaydeenba boqorada ingiriiskaan u dhaarsanay dee cid damboona dhaarisay ma jirin cid kale aanu u dhaaranay mama jirinba dee kuwankiin aanu u dhaaranayna iyadu ta kayska nagu soo ololisay nagu soo oogtay ma aha republicii markaa joogayna waataanu hore kugu sheego dee wax jiraaba ma jiraan leanno act of union maba jiraba waxaana la yidhi kayskii waa laydinku waayey kaasi wuxuu ahaa cabdilaahi aadan cabdilaahi congo haddaba dhegaystayaal midayntii maamulkii labada gobol ka sakow arrinta kale ee dowladdii ugu horraysay ee jamhuuriyaddii soomaalida hortaalle ama hortimi waxay ahayd gobolladii kale ee soomaalida degganayd ee aan markaasi xorta noqon in la raadiyo cabdirasaaq xaaji xuseen aanu mar kale idinku celinno oo arrintaasi bal ka warramaya dowladdii ugu horraysay tallaabada ay ka qaadatay waxaan ku bilaabayaa dastuurka soomaalida waxaa la geliyey in ay dowlad kastoo soomaaliya ay khasab ku tahay inay raadiso waddanada maqan in laysku soo daro oo ay uga shaqayso si nabada siyaasadda dibadda oo dowladda soomaalida tiirkeeda koowaad wuxuu ahaa in sidii lagu heli lahaa waddanada soomaalidoo maqan sidii xuquuqdooda loo heli lahaa ayuu ahaa marka wax alla wixii meel laysugu yimid oo urur ah oo dibada waqtigaas oo eeyo ma jirin United Nations haddii la ogolaan karay meelihii kale oo la isugu tegay xukuumadda soomaalidu marna dib ugama dhicin inay ku dhawaaqdo xaqa ay leeyihiin waddanadaas maqan in loo ogolaado codkooda inay dhiibtaan hadal meel kasta oo foruma oo la isugu yimaado oo suuragal ay noqon kartay xukuumadda soomaalidu aad bay uga dadaashay waa dibaddii gudahana ummadda soomaalidu sidaasay rumaysnayd xukuumadda soomaaliduna aad iyo aad bay mar walbaba ugu dadaalaysay in dadweynaha soomaalidu ay ku baraarugsanaadaan muxuu ah fikradaas iyada ayaa lagu dadaalayay inkastoo haddaba dastuurkii jamhuuriyadda soomaalida lagu qoray raadinta gobollada maqan ee soomaaliyeed waddamada arrintaasi ay ku xidhnayd ee soomaaliya dariska la ahaa wax kalgacala kuma aanay qabin qadiyadda soomaali weyn rajada ugu dhoweyd waxay ahayd jamhuuriyadda jabuuti oo wakhtigaasi la oran jiray french somaliland
hase ahaatee haddii aynu dib ugu noqonno sanadkii 1958 abti xisbiga gooliisku uu ka qaaday dadka reer jabuuti waxa ay doorteen inay ku sii xidhnaadaan oo ku sii hoos jiraan maamulkii faransiiska ilaa iyo intii haddaba golaha loo sameeyey deegaankaasi sanadkii 1945 nolosha xagga siyaasadda ee jabuuti dardar cusub waxaa geliyey markii sanadkii 1957 la doortay golo sharci oo mas'uul ka noqda arrimaha gudaha doorashadii ugu horreysay ee golahaasi waxaa ku guulaystay xisbigii la odhan jiray Union Republic oo isugu jiray Soomaali, Anfar iyo Caraba waxaana hogaaminayay Allah u naxariistay Maxamuud Xarbi waxaana la tartamayay urur kaleeto oo hogaaminayay Xasan Guuleed Abtidoon oo isaguna sidaas oo kale qowmiyaduhu ay ku wada jireen markii haddaba doorashadaasu ay dhacday waxaa madaxweynaha looga dhigay jamhuuriyadda jabuuti sarkaalkii ugu sarreeyey isticmaalka ee halkaasi ka fadhiyay ku-xigeenna waxaa noqday maxamuud xarbi allah u naxariiste hase yeeshee doorashadii la qabtay 23 bishii Novembar sanadkii 1958 iyadoo taageero xoog leh uu ka helay dhinaca Faransiiska ayaa waxaa ku guulaystay xisbiga uu hogaaminayay Xasan Guuleed Abtidoon oo markii dambe waddanku xornimada u qaatay madaxweyne ka noqday isaga ayaana markaasi loo doortay inuu ku-xigeen u noqdo wakiilkii Faransiiska halkaasi ka fadhiyay maxamuud xarbi waxaa dabeetana uu baxsaday magaalada qaahira iyadoo ololihiisu ahaa jabuuti oo ka xorowda faransiiska markii dambena 1959 waxa uu tegay magaalada muqdisho halkaasi oo lagu samaynayay dhaqdhaqaaq Soomaali weyn raadinaya bishii Oktoobar sanadkii 1960 ayaa maxamuud xarbi allah u naxariistay waxa uu ku dhintay shil dayuuradeed isagoo ku sii jeeda magaalada muqdisho oo ka soo laabtay booqasho uu ku tagay waddanka Shiinaha iyo waddamadii Yurubta bari haddaba dhegeystayaal imakana bal waxaan idin maqashinaynaa mid ka mid ah si aan ugu nasano heesihii gobonimo doonka ee Jabuuti markaasi loo qaaday waa kan Axmed Naaji dadka reer Jabuuti dadka reer Jabuuti nin xornimo u jeeda jalaafada gumaysiga kama joogsanayeen dadka reer Jabuuti dadka reer Jabuuti nin xornimo u jeeda jalaafada gumaysiga kama joogsanayeen waa inaydun jiidhaan isticmaalka jeebisaan waa inaydun jiidhaan isticmaalka jeebisaan jaalayaal walaalayaalo jaalayaal walaalayaalo iska jira gumaysiga wuu jaadad badayow jirjiroole weeye idinkala jaraaye iska jira gumaysiga wuu jaadad badayow jirjiroole weeye idinkala jaraaye haddii aynu haddaba u baydhna dhinacii NFD sanadkii 1960 waxa gobolka Soomaalidu uu ahaa ka ugu go'doonsan horumar ahaan ugu liita qaybaha waddanka Kenya inkasta oo Soomaalidu aanay si toos ah uga qayb qaadanin doorashooyinkii Kenya ka dhacay sanadkii 1957 haddana sanadkii 1959 ruux ayay Soomaalidu u soo magacaabeen si uu ilaaliyo danahooda golihii baarlamaan ee la sameeyay ee la oran jiray Legislative Council kadib markii la qaaday xayiraadii ururada xagga siyaasadda sanadkii 1960 inkasta oo aan la khafiifin xayiraadihii gaarka ahaa ee saarnaa gobolkaasi haddana Soomaalidu waxa ay taageereen xisbigii la oran jiray NPPP Northern Province People's Party dowladda Ingiriiska ayaa iyaduna aan mowqifkeeda markaasi cadaynin waxa dhacday markaasi in Ethiopia ay bilowday olole ujeedadiisu tahay inay kaga hortagto Soomaali weyn oo dhaqan gasha istiraatiijiyada Ethiopia adeegsanaysay waxay ahayd in xukuumadda Britain ay ku eedeyso inay Soomaali weyn iyadu ay dhisaso waxaana ay culays Ingiriiska ku saartay Britain inay cadayso siyaasadeeda dhulka Soomaalida ku saabsan bishii Juulaay haddaba sanadkii 1960 ayaa Macmillan oo ra'iisul wasaaraha ka ahaa dalkan Britishka ay la noqotay in arrintaasi sharaxaad uu ka bixiyo waxaana hadal arrintaasi ku saabsan uu ka jeediyay baarlamaanka dalkan Britishka waxa hadalkiisu ahaa sida tan
xukuumadda britishku dhiirigelin iyo taageero midna ma siinin mana siin doonto wixii sheegasho ah ee saamayn ku yeelan karaya xushmadda dhuleed ee french somalilan kenya amaba etoobiya waxaa arrintaasi laga hadli karaa uun ayuu yidhi haddii ay noqoto doonis ka timaada dowladaha iyo dadyowga ay khusayso waxaa haddaba hadalkaasi loola jeeda dhegaystayaal in lagu qaboojiyo etoobiya iyo faransiiska isla markaasna qalbiga loogu dejiyo hogaamiyaashii reer kenya ee aan soomaalida ahayn dhinaca soomaalidana waxaa hadalkaasi uu qiray uun in dareenkooda la qadarin doono sanadkii 1961 doorashooyin ka dhacay waddanka kenya soomaalidu waa ay qaatacday 1622 ruux oo keliya ayaa isu diiwaan geliyey waxaana markaasi ay ka baqeen haddii ay codkooda dhiibtaan in loo qaato inay ogolaadeen dhalashadoodu inay Kenyaan tahay shirkii Kenya haddaba sharciyada loogu sameeyay oo lagu qabtay Lancaster House oo magaalada London ku yaala bishii February sanadkii 1962 wafdi ka yimid NFD waxa hogaaminayay allaha u naxariistay nin la oran jiray Cabdirashiid Khaliif waxaana wafdigaasi ay dawladii Britishku ay weydiisteen in ismaamul gooni oo la siiyo NFD inta aan isbedel kale oo xagga sharciga loo sameeynin waddanka Kenya si ay si buuxda ugu biiraan Soomaaliya inta Kenya aan xornimo buuxda la siinin isla markaasina xuquuqdii ay heleen Somaliland oo boqortooyada Britishku gumaysan jirtay ay helaan waxa taasi ka soo horjeeday labadii urur ee Kenya ay lahayd ee la kala oran jiray KANU iyo KALU shirkaasi London lagu qabtay guddi NFD ay u saartay inay sii daba gasho waxa kamid ahaa Axmed Cabdi Oogle waxa Axmed aanu haddaba weydiinay bal inuu nooga warramo shirkaasi waxa gundigiisu noqday iyo kii ka dambeeyay ee ka dhacay magaalada Rome arrinka sidoo dhacay wuxuu ahaa Lancaster waa kii xorriyadda Kenya nidaamka qawaaniinkii loo dhigay laga wada hadlayay marka wafdi baa ka socday azaxadta marka Kenya ka fureed oo KANU xisbiga la yiraahdo Jomo Kenyatta madaxda u ah iyo xisbi KADU la yiraahdo oo ninkan hadda wadanka xukuumay ay ka tirsanayeen marka wafdi ka gooni ah oo Soomaaliya oo la ogolaaday inay shirka ka qayb qaataan waa jireen NFD lagu magacaabay dooda Lancaster dhab ahaan kama aanay qayb qaadanayeen laakiin halkaas ay ku sugayeen oo ma garanaysaa wixii dood ay ka qabeen wadanka xorriyadda la gaarsiin lahaa safay aga hadlaan waxaa kale oo joogay wafdi ka socda dawladda Soomaalida oo Maxamed Ibrahim Cigaal oo markaa wasiirka tacliinta ah oo madax ka yahayna London bay joogeen sidii iyagana wixii ay ku biirin karayaan oo sooda iyagoo ku doodaya NFD inay tahay wadan Soomaali kamid ah maxaa markaa Soomaalida loogu diiday shirkan ka qayb qaataan ay dibadda uga joogeen waqtiga Lancaster House shirka lagu qabtay waxa weeyaan ma garanaysaa axzaabti kama ay tirsanabay markaa ay ku doodayaan iyo doodoodii hadda kaba gooni ahba wixii ma garanaysaa ka dhacaya meesha dadkan xorriyadda sida wadanka Kenya loo gaarsiin lahaa baa laga hadlayay ayagana sida ay aga go'i lahaayeen agenda laga wada hadlayay baa kala gooni ah sida haate fursad bay heleen ragga ayaga in ay la kulmaan wasiirul mustacmaraadka iyo dad dawladda ka tirsan Ingiriiska nin Reginald Modeling la yiraahdo markaas ay wasiirka isticmaalka yaa ahaa marka waxa la kala qortay oo lagu heshiiyana waxa ay in wafdi marka Commonwealth ka tirsan in loo diray NFD halkaas oo ay soo xaqiiqsadaan dadka degan gobolka NFD la yiraahdo waxa ay doonayaan waxa marka lagu doonayay ay tahay inay Soomaali raacayaan iyo inay doonayaan inay ka tirsanaadaan wadanka Kenya waxa go'aan oo laga gaaro halkaana ma garanaysaa dawladda Ingiriiska ay ku camal fasho marka wafdiga Soomaalida ayaga faraxsan bay marka wadanka dib ugu soo noqdeen oo malaynay inay guusho meesha ay dhaliyeen waxaad ka warantay Axmed maadaama marka wafdigaasu iyagoo faraxsan ay soo laabteen arrintaas sidee markii dambe isu bedeshay isla bariye horta wasiirka mustacmaraadka waa la bedelay oo nin Ian MacLeod la yiraahdo yaa wasiir laga dhigay wafdiga waa la soo diray NFD bay yimaadeen 6 magaalo marka la dhihi jiray oo Marsabit iyo Siolo iyo Moyale oo laga gooyay hadda gobolka Waqooyi Bari ya NFD ya Garis iyo Mandera iyo Wajeer 6 NFD baa la dhihi jiray way wada mareen reportkooda wuxuu ahaa marka 87% inay doonayaan inay Soomaali raacaan marka sidii aan kala ogaa dawladda Ingiriiska way un cagajiiday reportkii in ay soo saarto iyo dib ula dhacday wafdi baa marka loo diray London wasaaradda marka qaabilsanayd arrimaha gumaysiga wafdigaas marka kamid ah oo London tagay marka waxay ahdiina siiyeen in uu
si degdeg ah dowladda ingiriiska go'aan ay u gaari doonto go'aankaana ay ku gaari doonaan shir ayaga iyo dowladda soomaalida ka dhexdhacaya oo magaalada Rome lagu qaban doono waxaa dhacday isla intaa haddana in mar kale dowladda ingiriiska ay isbedeshay nin Harold Macmillan la dhihi jiray prime minister meesha ka baxay Lord Hume baa prime minister noqday wasiir mustacmaraadkana mar saddexaad baa la bedelay nin Duncan Sams la yiraahdo oo go'aanka u dambeeyay NFD ku saabsan gaari doono yaa meesha soo galay marka waxaan ku soo noqonay wadanka anagoo bal haddana ka dhur sugayno Rome wixii ka soo baxa waad ka warantay Axmed dhinaca wufuuda ka socota Kenya makaanu haadeen labadii xisbiye markaas iyo gobonimada doonayay doodooda iyagu maxay hayday ay ku diidanayeen Soomaalidu mowqifka ay taagneed Soomaalida reer NFD wadan ka tirsan inuu yahay Kenya xuduudada sidii uu isticmaalku u dhigan in loo daayo wixii markii dambe Xayla Salaas uu mariyay oo ayuga oo sharciga ka dhigay marka doodooda waxay ahayd wadanka lama qaybin karayo Soomaalida hadii loo ogolaado inay go'aan qola kasta oo xuduud degan sida Maasai ay ku halqabsan jireen oo qaarna Tanzania degan qaarna Kenya degan ayagana waa go'ayna bay dhahayaan marka wadanka xorriyadiisa inay suuragal ba ahaan oo Soomaalida sababteeda uu kala qaybsami doono iyo marka ku doodayeen waana labada xisbiba halka way ka mideysnaayeen waxaad ka warantaa markii dambe mesela shirkii la isugu yimid magaalada Rome ee wadanka Talyaaniga ee xukuumadda Soomaaliduna markaas ay timi maxay qodobada laga hadlaysay shirkaas sidoo u dhacay muxuu gundhigiisa noqday shirka wuxuu u dhacay waxay ahayd dawladda Soomaalida iyo Ingiriiska inay ka wada hadlaan ilaa sida aan ku sheegay interestiga Soomaalida ay u leedahay NFD wax qarsoon markaa ma sanayn way ku doodayeen marka wafdi ma garanaysa dawladda Ingiriiska oo go'aankeeda halka laga sugayo iyo dawladda Soomaalida halka inay ku shiraan iyo ahayd wafdiga Soomaalida marka Dr. Sharmaarke oo prime minister ahaa madax u ahaa Cabdullaahi Ciise wuu joogay nin Ali Maxamed Hiraab la yiraahdo wuu joogay Maxamuud Cabdi Caraar in la yiraahdo marka safaaradda marka cilaaqaadka la kala goosta London ka yimid wuu joogay iyo dhowr kale oo safiir qayb ninka la yiraahdo rag badan halka ku garanay badooda waa dhinteen Allah u naxariistay marka dawladda Ingiriiska marka sida la filayay wafdigeedii hoos bay u dhigtay oo nin Peter Thomas la yiraahdo wasiir dawli ah wasaaradda khaarijka ay soo direen meesha ama Lord Hume inuu yimaado laga filayay ama wasiir khaarijiyada marka taa qudheeda walwalbay dawladda Soomaalida iyo dadka meesha joogay qudheeda waan jooga Rome marka yay gelisay marka waxa dhibaato ka dhacday wafdi Kenya oo marka daaqili heshay yaa wasaare ka socotay eegana oo Kenya oo le Soomaalidan la hadlayna oo nin James Gichuru la yiraahdo oo wasiirka lacagta marka laga dhigo waa daaqili Tom Mboya ragcan kan ay tahay marka dawladda Soomaalida way diiday waxay yiraan wax dood oo naga dhaxeeya annaga iyo dawlad Kenya ka dhalan doonta malaha waxaan arin isticmaar bay ahayd Ingiriis baa wadankan adoonsanay ama gumaysanay Kenya sidoo xorriyadda u gaarsiinaya xorriyad lamid ah waa inay gaarsiiyaan dadka NFD marka Kenya ma wada hadlayno marka waxa dhacay wafdigii Kenya in lagu biiriyo wadanka Ingiriiska ay xubin ka noqdaan safa ay doodooda ay qayb galaan annagoo dhowr oo NFD ka soconayna marka wafdigii Soomaalida in lagu dhaxgoogooyo oo ma garanaysaa qaarkeena ay sidaas ay ka qayb galaan marka go'aan in Ingiriis gaaro iyo ahayd go'aankana ma garanaysaa wuxuu ku dhamaaday si aad u falxun Ingiriisku waxay yireen wax go'aan oo gaaray keenayna malaha Kenya markay xorriyadda qaadato inaad ka wada hadashaan weeyaan wafdiga Kenya ninka madaxda u ahaa Tom Mboya ninka la yiraahdo hadlay wuxuu yiri marka waadna soo mari karaysaan oo prime minister Kenyatta marka ya waan idinku casimaynaa Nairobi inaad ka wada hadashaan shirkaas 3 maalmood buu socday aad baan u xusuusnahay Dr. Sharmaarke naxariista Allah si aad buu ugu dadaalay ma garanaysaa shirka inuusan ku dhamaanin ma garanaysaa in sida lagu kala tago asagoo mar Kenya tusay in cilaaqaad quman oo walaalnimo ayaga iyo dawladda Kenya iyo Soomaaliya ay dhaxmareen inta NFD xaalkeeda aanka u yahay sidaan u joognay 3 maalmood markii la joogo baan war helnay wafdiga Ingiriiska galabta dambe inuu tagayo oo London ku noqonayo bas shirka sidaas ay tumba wax communique oo la soo saaray ma aana jirin halkii baa lagu soo kala tagay kaasi wuxuu ahaa Axmed Cabdi Ogle imakana dhageystayaal